wiilkani magaciisu waa Xakiim waana muslim wuxuu la nool yahay aabihii markasta wuxuu ku hamiyaa inuu iibsado lucbadan ma u sheegin aabihiis arrintan maxaa yeelay ma doonayo inuu wax ku kalifo laakiin wuxuu aruuriyaa lacagta la siiyo maalin walba si uu ugu iibsado That is my Ato. Always making sure I get to school on time. Xakiim wuxuu aadaa maalin walba iskuulka isagoo raacaya aabihii wadadana waxay ku caawiyaan qof walba My Ato likes to help people. And it seems like everyone is his friend. marka ay arkaan qof arin haysato oo u baahan kaalmo way caawiyaan wiilku maalin walba wuxuu fiiriyaa lucbada wuxuuna xisaabiyaa lacagta uu haysto wuxuuna sugaa inta ay lacagtiisa ku gaarayso qiimaha la iibiyo maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo gashay macallimada Ingiriiska waxayna bilowday sharaxaada cashirka Take out your math textbooks and turn to page 27. Today we are going to be doing fractions, which is very important. So I want all of you to listen to me very. Xakiim wuxuu arkay mid ka mid ah saaxiibadiisa niyad jab iyo fikir ku jiro Hakim, Okay. pay attention. Okay. xitaa waqtiga break wuxuu arkay isagoo kaligiis fadhiyo oo fikiraya markii xiisaduhu dhamaadeen wiilku waxa banaanka u tagnaa aabihii gacanta ayuu ka shumiyay waxayna u laabteen guriga Xakiim waa mu'min salaad walba dugtaa markasta wuxuu ku hamiyaa sidoo ku heli lahaa lucbada subax kasta wuxuu eegaa lacagtiisa ilaa uu ka aruuriyay lacagta dhan oo go'aansaday in uu soo gato lucbada maanta $4. Sometimes my Ato does strange things. sida caadada ahayd Xakiim wuxuu soo aaday iskuulka isagoo soo raacay aabihii wadadana waxay ku caawinayeen dadka wax walbana waa sidaad arkaysid Cuba try ni bang, mudah-mudahan boleh. Masukkan. Pelan-pelan. Tengok. Kan boleh. Alamak. Okey lah, kita jalan dulu lah. Ni budak nak ke sekolah. Mari, Kim. Nyonya tu angkat. Kau dah angkat kau. So, ini kasih lu pakai. Protect taruh banyak bagus. I guess he likes making others smile. Jadi lu sini tak sakit. Bye-bye. Bye-bye. laakiin maanta xiisada luqadda Ingiriiska waxaa dhacay arrintii ka duwan Then, okay, good morning, class. Okay, everybody sit down. macallimadii ayaa soo gashay xiisadii waxayna bilowday sharaxaadii markay soo gaartay wiilkan waxay aragtay buuggiisa oo jeexjeexan way ku qabatay waxayna tiri maxaa kitaabkaada saan u jeexjeexay wiilkii ma la hadlin wuuna iska aamusay isagoo xishoonaya markay xiisadu dhamaatay Xakiim wuxuu si toos u aaday maktabadda isagoonan ka fikirin wuxuuna soo iibiyay kitaab luqadda Ingiriiska
I don't know if I can ever be like Ato. kadib wuxuu u soo baxay bannaanka wuxuu arkay aabihii oo sugayo gacanta ayuu ku shumiyey wuxuuna ku yidhi isug aabbo wax yar kadib wuxuu arkay saaxiibkii wuuna u yeeray wuxuuna siiyey kitaabkii laakiin qalin ayuu soo baxsaday magaciisa ayuu ugu qoray wuxuuna ku yidhi adigaa leh Yeah. What's this? Oh yeah, I forgot to write something. xakiim markuu arkay qosolka saaxiibkiis wuxuu dareemay farxad ka badan tii oo u dareemi lahay lucbada arrinkani waa camal wanaagsan waxaa nagu waajiba dhammaanteen in aan qisadan wax ka barano sidoo kalena aan la wadaagno asxaabteena si aan u noqono dadka caawiya mar kasta